مدن عبد الكريم حسين كولي دولتي مدحوينه حسن الشيخ محمد adiga iyo saaxiibka farxad qad waxaad ahaydeen milkiilayaasha dowladdaas idinkoo isku dhan waxaad gaarteen go'aan waxaad amar ku bixiseen in la dumiyo dadkii ku noolaa waddadan aeroboortka marta ee jayga ay yidhahdaan waddadii dad masaakiina oo cabshaan iyo maaragta sadaqado iyo ku noolayahay waxaa sabab uga dhigteen in amniga garoonka aeroboortka uu khatar geli karo dadkaasi inay meesha ka tagaan inta dadkii waad ka nadiifiseen meesha waa ka saarteen idinkii baa qaybsaday adigaa qaybsaday oo qaatay waxaad qaatay faarka qaatay waxaad qaatay guddoomiyihii jawaari waxaad qaatay wasiir goodah waxaad qaatay senator degdeg waxaad qaatay senator dhegi waxaad qaatay senator xildhibaan mustaf dhuxlo waxaad qaatay intaas oo xildhibaanada duqii magaalada oo dadka markaa ka nadiifinaya muungaar waa qaatay sidee marka laydinku aamina haddii dadkii shalaysa saa u gasheen maantana nebihi haddana la hogaamaya sidee ku aamina waa sax xilligii aniga wasiirka amniga aan ahaa ayaa dhulkaas la jebiyey anigana ma jebin madaxweyne xasan sheekhna ma jebin qof gaar u jebiyena male ee golihii amniga qaranka ee xilligaas jiray oo ka koobnaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada kiiga ah iyo taliyayaasha ciidanka oo idin go-aan golaha amniga qaranka ka soo baxay ayaa lagu jebiyey aniga iyo guddoomiyihii gobolka ee xilligaa jiray iyo dhammaan hay-adihii amniga ee xilligaa jirane amar cad na lagu sii banayno si amniga iyo safety-ga airboortka oo ah goob aada iyo aad muhiim ugu ah dalka loo sugo anagoo amarkaas fulinayna dhammaan hay-adihinaasoo kala duwan ayaan goobtaas banaynay wixii ka dambeeyey intaas anigu dowladdu waa ka tegey madaxweyne galmudug noqday cid bixisay iyo meel lagu bixiyey iyo cid la siiyey mana ogi mas-uulna kama ihi su-aashaas marka waxay ku habboon tahay inaad weydiiso ninkii goboratoore ahaa ninkii wasiir amni gudo ahaa iyo ninkii madaxweyne iyo ra-iisul wasaare xilligaas si ku habboon tahay halka shay marba inaan hoosta ka xariiq waxay tahay aniga kula hadlaya hadda meeshaasan degana guri kale oo nin leeyahay oo ninka magaciisa aan sheegi karo cabdisaaq kookakoleedahan ka deganaa gurina kumelihi dhulna kumelihi waa maasantahay